السلام عليكم soo dhawaada daawadayaasheeda qiimaha badan oo siin wada ogsoonnahay waxaynu ku jirnaa waqti uu farabaas ku hayo xanuunka Covid19 adduunka maalmo ka hor bilowgii xanuunkani dadku waxay ahaayeen qaar naxdin badan ka qaba ku dhicitaanka xanuunkani hase ahaatee hadda waxaad moodaa in dad badani ayba u jeedin iyagoo kaliya aqoonsaday kana qaatay concept guud oo ah in Covid19 uu yahay xanuun dadka qaar u dhintaan qaarna ay ka bogsadaan sax waa sida uu xanuun walba dadka haleela qaarna alle ka bogsiyo qaarna ay u dhintaan hase ahaatee saynu aragno xanuunkani waa mid ka duwan xaqiiqda maxaa yeelay waxaynu nahay dad aan wax badan baarin aqoontooduna aanay horumarsanayn la socodka xaaladaha xanuunkanu marayo waa mid inagaga yimaada dunida kale ee wax baadha inagu waxaynu nahay dameero dhan raacday Covid19 bilowgiisii iyo hadda waxaa jirta in aanay isku mid ahayn walow dhakhaatiirtu iyo bahda caafimaadku ku tilmaamaan inuu ka daran yahay kana faafitaan badan yahay waxaynu maalmaha dambe la soconaa dhimashada oo kor u kacday dalkeena Soomaaliya oo dhan oo 4 meel lagu aasaaba ay 3 ama 2 u dhintaan xanuunkani daba halkan waxaynu ugu soo gudbinayaa 2 qodob oo ay tahay inaad ku dadaashid fadlan si wanaagsan u dhageysan labadan qodob Allah subhanahu wa ta'ala markuu addoonku soo noqdo uu ka aqbala toobada Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu ka xishooda addoonkiisa oo gacmaha u taagay inuu ku soo celiyo iyagoo maran haddii aadan la iman wax lid ku ah asbaabta toobada lagu aqbalo qodobka labaad qaado asbaabta fariimaha ka soo baxaya bahda caafimaadka raac maxaa yeelay waa asbaabtana diinteenu way ogoshahay inaad alle tala saarato waxa ka horeeya inaad asbaabta qaadato markaas alle tala saarato asxaabi kamida asxaabta rasuulka sallallahu alayhi wasallam nabiga wuxuu ku yiri nabi allow awrayaan wata marka awrka neefka geelay awrka miyaan xira sawaan alla tala saarta rasuulku wuxuu ku yiri sallallahu alayhi wasallam xid dabeetana alle tala saaro marka wuxuu ku cadaanaysaa in marka hore la timaadid asbaabta ka bacdi aad alla tala saaro ana taamaanta ay fahmi laayihiin dadkeena badankood si kastaba ahaatee ku dadaal labadan qodob intaas ayaan jeclaystay inaan la wadaago nagu soo biir haddaad nagu cusub tahay. Wassalaamu calaykum.